السلام عليكم waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan sharaxo filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Awake haddaba waa kan filinkiye daawo oo taxadarna Jill Adams waa askariyad hore oo markaa dhanka caafimaadka ee ciidanka Mareykanka waxayna u shaqeysaa sidii ammaan ahaan iyadoo ilaalisa markaa kulliyadda caafimaadka ee deegaanka si ay u koriso carruurteeda Noah iyo Matilda bilowga filimka waxay gashay markaa isbitaal xilli habeen ah iyadoo markaa si qarsoodiya u galaysa qaybta shaybaarka dabadeed waxay xadaysaa markaa daawooyin subaxii dambena waxay markaa ka iibsanaysaa qof markaa ka ganacsada maandooriyaha xilligaas kadib Jill waxay markaa aadaysaa guriga hooyadeed Doris si markaa u soo kaxaysato carruurteeda sababtoo hadda markaa carruurteeda waxaa ku haysa gacanta hooyadeed Doris Matilda way ku faraxsan tahay markaas inay hooyadeed la kulanto laakiin Noah wuxuu u muuqdaa markaas inuu xanaaqsan yahay Doris waxay markaa ka codsanaysaa Jill in markaa carruurta keento guriga ilaa 7 markii ay ka haysteen gaarigii ayuu xoogaa markaa gaarigu yar rogrogmay calashaan uu yar ruxmay hooyadu markaa waxay weydiisay carruurteeda inay fiican yihiin laakiin inta aysan u jawaabin baabuur ayaa markaa ku dhacay waxayna iyagii oo gaariga ku jira ay ku dhaceen harab markaas meeshaas u dhaweyd oo biyo ku jiraan qoyskan ayaa markaa ku dhibaatoonaya hadda sidii markaa ay uga bixi lahaayeen meeshan Jill iyo Noah way maareeyeen markaas inay ka baxaan meesha waxayna sameeyeen markaas inay dabaashaan si la mid ah Matildana way soo badbaadiyeen si ay u nastaan nin boolis ayaa markaa badbaadiyay oo u kaxeeyay markaas xaggaas iyo xeebta Jill way dhaawacantay ninka booliska ayaa wuxuu u sheegayaa markaas inay aado isbitaalka waxaana muujinayaa in magaalada oo dhan aysan ka jirin wax koronto ah oo wax kasto markaa koronto ku shaqeynayay ama gaas ku shaqeynayay ay xumaanayaan markaas gaadiidka magaalada oo dhan ayaa markaa shaqada joojinaya kuwaas oo shilal badan meel walba ka geystay Jill iyo carruurtu waxay markaas aadeen dhankaas iyo isbitaalka waxayna arkeen inay ka buuxaan dad badan oo markaa dhaawacan xaaladda shilalka awgeed qofna ma garanayo waxa sababay markaas khasaaraha korontada iyo sidoo kale xilliga markaas korontadu ay soo laabanayso qofna ma garanayo dadka isbitaalka ku jira ayaa markaa qiyaasaya in laga yaabo inay dagaal ku jiraan ama sidoo kale ay soo weerartay markaas urur argagixiso markay sugayaan waxay markaas goobjoog u ahaayeen 2 bukaan oo kooma ku jiray oo markaas ka soo kacay waxayna ku soo noqdeen guriga waxayna la joogaan habeenkaas Doris Noah iyo Jill maysan seexan habeenkaas sida darteed daaqada ay markaas ka eegayeen xidigaha oo waxay fiirsanayeen habeenkaas dayax gacmeedyo kuwaas oo markaa ku socda xawaaro sare si kastaba aatee subaxii ay Jill u kacday markaas shaqadii inkastoo ay weli tahay markaas mugdi oo wax koronto aysan jirin qof kastoo markaa xaafadda ku nool wuu soo jeedaa wayna jahwareertay sababtoo ah sida caadiga ahayd wadooyinku faaruq ayay ahaan jireen waqtigii hore intii aysan shaqada aadin ka hor waxay markaa la kulantay ninkii ay ka iibin jirtay markaas daroogada kaasoo markaa u sheegay inuu laabmi karo qiimaha markaa kinin kastoo ay u keento maadaama iibku cirka isku sii shareeray sababo markaa la xiriira khasaaraha korontada markii ay timid shaqada nafteeda ayay khatar ugu bareedhay waxayna isku dayday markaas inay xaddo daawooyinka maalin cad waxaana ku qabatay madaxa kulliyadda taasoo lagu magacaabo Dr. Murphy iyadoo qolka la soo gashay markaas 2 askari si la yaab leh ugu dambeyntii waxay iska deynayaan markaas iyada waxayna ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen markaas sababta keentay markaas khasaarahan korontada Dr. Murphy waxay markaa xasuusan tahay in Jill ay ahaan jirtay markaas askariyad sida darteed waxay weydiisay markaas inay ku biirto xarunta badbaadada ee la aasaasay si markaa loo baaro khasaaraha dhashay Jill way diiday dalabkooda iyadoo doonaysa taa beddelkeeda inay markaa carruurteeda la joogto shaqaale ka socda markaa kulliyadda oo lagu magacaabo Brain ayaa u sheegay Jill in qof kastoo magaalada jooga aanu awood u lahayn inuu seexdo markaa 48 saacadood u dambeeyay mana garanayo waxa keenay Brain wuxuu kala markaa sharaxayaa xaaladan daran isagoo markaa sheegay in dadku la kulmi doonaan calaamadaha hurdala'aanta haddii markaa taas ay ku sii jiraan qof kasta markaas uu muddo kooban maskaxdiisa ku waayi doono Jill ma aysan rumaysan isaga sababtoo ah Matilda waxay si nabada markaas u seexatay habeenkii xalay waxayna ahayd mid markaa hurdo dheer ku jirta marka ay Jill soo aaday markaa shaqada Brain wuu naxay markaas taas markay u sheegtay sababtoo qofka kaliya la yaqaanay ee seexday 48 saacadood u dambeeyay waxay ahayd markaas islaan weyn taasoo markaa qabtay wadna xanuun dhakhaatiirtuna waxay ku hawlanaayeen markaas inay markaa helaan xaaladda daawadeeda Jill waxay ogaatay markaa Matilda iyo islaantu markaas inay isku mid yihiin oo ay markaa ka duwan yihiin dadka magaalada oo dhan Brain markaas wuxuu u sheegay Jill in markaa ay u kaxayso xarunta si ay u caawiyaan dhakhaatiirtu laakiin Jill way diiday tijaabooyinka ay markaa dhakhaatiirtu ku samayn doonaan gabadheeda taas kadib waxay markaa u carartay guriga si markaa ay u raadiso Matilda laakiin guriga markay timid waxay ogaatay markaas inay jirto kaniisadda qof kastoo kaniisadda joogana wuxuu og yahay markaas Matilda inay seexan karto ninka meesha markaa jooga wuxuu bixinayaa markaa wacdi ku saabsan Matilda dhanka kale kuwa xaq jirka ee jooga markaa kaniisadda ayaa raba markaas inay wax walba u huraan sidii markaa ay u heli lahaayeen hurdadooda marka guriga lagu soo noqdo
Jill waxay markaa dareentay in Matilda laga yaabo inay xaalad khatar ku jirto haddii markaa dadku ay ogaadaan inay seexan karto. sida darteed waxay xirxiratay markaa boorso waxayna ku guratay markaa waxyaabo daruuri ah iyadoo go'aansatay markaas inay ka cararto bulshadan. iyada iyo Noah waxay aadeen markaa kaniisadda waxaana socodka ku weheliya Brian. waxayna indhahooda ku arkayaan dad badan oo markaa loo geysanayo dhac. sidoo kale waxay la kulmeen mayd askari boolis ah kaasoo yaala markaas meel luuqa. dadku durba waxay bilaabeen markaas inay waashaan hurdo la'aan awgeed. Jill ugu dambeyntii waxay gaadhay markaa kaniisaddii oo waxay markaa maqashay in dadku markaa ka hadlayaan waxyaabo ku saabsan Matilda. Brian wuxuu isku dayay markaas inuu ku qanciyo dadka meesha jooga inay u ogolaadaan inay gabadha yargeeyaan xarunta. balse nin bilis ah oo u danaynaya markaas inuu naftiisa huro ayaa toogtay markaas Brian. qof kastoo markaa meesha jooga wuu argagaxay oo wuxuu bilaabay markaas inuu cararo. inta xaaladaasi socotay Jill waxa u suurta gashay markaas inay hesho saddexdeedii carruur wayna carareen ilaa markaa ay ka tageen meel markaas xoogaa kayn ah. Noah wuxuu markaa ku qanciyay Jill inay gabadha yargeyso markaa xarunta sababtoo ah isaga iyo Jill haddii markaa ay ku dhintaan dhowr maalmood gudahood dadku waxay dili doonaan markaa Matilda. si kastaba ahaatee Jill waxay markaa ogaatay in qaar ka mid ah markaa maadooyinkii hore baabuurtu ay ku shaqayn jirtay in markaa weli ay shaqaynayaan. markaa waxay aaday crash u dhawaa. Noah iyo Matildana waxay markaa ku dhuumanayaan banaanka. dhanka kale Jill si taxaddar leh ayay markaa ugu socotay garaashka gudihiisa waxayna aragtay markaa laba tuug oo meesha u soo dhacay. waxayna qorsheynayaan markaa inay dhammaantood sheegtaan baabuurta markaa meesha ku jirta inay iyagu leeyihiin. waxayna si dhuumasho markaa ugu socotay garaashka dhexdiisa iyadoo markaa heshay ugu dambeyntii furayaashii oo dhan. in yar kadib waxay markaa helayaan baabuur shaqaynaya waxayna bilaabeen markaas inay raacaan oo ay aadaan markaas dhankaas iyo xaruntii. xoogaa markay sii socdaan Matilda waxay seexatay markaa gaadhiga dabadiisa. Noah wuxuu la yaaban yahay markaa walaashii awoodda markaa ay u leedahay inay seexato. waxayna joojinayaan gaariga markay arkaan markaa shil kaasoo ka dhacay markaa wadada bartamaheeda. Jill ayaa soo degtay oo markaa ku soo dhawaatay waxayna ogaatay in markaa tuug ay yihiin. waxayna si fudud u qaadatay markaa qorigoodii iyagoo markaa sii wata markaa safarkoodii. in yar kadib waxay markaa la kulmayaan dad qaaqaawan oo loo malaynayo markaas inay yihiin urur diimeed waxayna u banaynayaan meel si markaa baabuurku ugu maro. kadib saddexdoodii waxay gaadhayaan markaa maktabad cidlo ah waxayna go'aansanayaan markaa inay nastaan. Jill waxay baraysaa markaa Matilda inay toogato markaa shay iyadoo isticmaalaysa markaa qori. waxayna u sheegaysaa inay u baahan doonto lacala haddii labadoodan kale ay dhintaan hurdo la'aan awgeed. fikirka kelinimada ayay markaa ka argagaxday Matilda. kadib baabuurka xaggiis dambe ayay markaa seexatay halka Noah iyo Jill ay isku dayayaan markaas inay helaan khariirada xarunta. dhanka kale waxaa jira markaa dhowr maxaabiis oo laga soo daayay markaa xabsi u dhawaa. maxbuus lagu magacaabo Dorothy ayaa helay markaa gaarigii Matilda ay ku dhex hurday oo ka haystay iyada oo Matilda ay weli ku dhex jirto. markii labadii kale ay dibadda u soo baxeen way yaabeen markay arkeen markaa in gabadhoodii ay maqan tahay. dhibaatada waxaa uga sii daran maxaabiista kale ayaa ku hareeraysan iyagoo ka codsanaya inuu Noah u yimaado. Jill rasaastii ayaa ka dhamaatay. nasiib wanaag ugu dambeyntii waxaa yimid ninkii markaa gaariga qaatay wuxuuna badbaadiyey markaas labadoodii. daqiiqada kadib waxay istaageen markaa meel u dhow burbur diyaaradeed. Dorothy wuxuu helay markaa dhowr dhar iyo waxyaabo kale waxayna ka haysteen gaarigoodii. dabadeed waxay u jihaysteen markaa dhankaas iyo waqooyi oo ay ka xigtay markaa xaruntu. habeenkaas Jill waxay baraysaa markaa Matilda inay wado gaariga si ay ugu diyaar garowdo suurtagalnimada inay keli ku noolaato. inta ay safarka ku jiraan waxay arkayaan dad meydkoodu ka soo laalaado meel markaa wadada u dhow. ugu dambeyntiina waxay gaadheen markaa xaruntii. Jill iyo carruurtu waxay gaariga ku wareejinayaan Dorothy si markaa u kaxaysto ilaa markaa magaaladii. wuxuuna u soo bandhigayaa markaas inuu caawiyo iyaga laakiin way ka diidayaan. Jill ayaa markaa ku ilaalinaysa carruurteeda guri markaas meesha u dhawaa. wax kasta ayaa markaa dhici kara. waxayna doonaysaa markan inay hubiso in xarunta ay ku badbaadi karto carruurteedu. waxayna bilaabaysaa inay socoto oo ku dhawaato markaa xarunta iyadoo markaa ku dhuumanaysa buundada hoosteeda. waxay ogaatay in ciidanka markaa meesha ilaalinaya ay isticmaalaan markaa daawooyinka. kadib gudaha ay u soo gelaysaa markaa xarunta waxayna isu okeysiinaysaa markaa shaqaale shaybaadh ah iyadoo markaa la kulmaysa islaantii duqda ahayd. laakiin islaantan aad bay u xanuunsanaysaa mana fahmaysa markaa codsigeeda. markaas kadib waxaa markaa soo gelaysa Dr. Murphy waxayna arkaysaa markaa iyagoo wada hadlaya. Jill waxay markaa ku andacoonaysaa inay halkan markaa u joogto inay caawiso. dhaktarada laftigeedana waxaa markaa ka muuqata hurdo la'aan zaa'id ah waxayna sheegtay markaas in dhakhaatiirtu ay helaan markaa daawadaasoo markaa wax ka taraysa hurdo la'aanta. intaa kadib Jill waxay markaa usoo noqonaysaa meeshii waxayna arkaysaa markaas Dorothy iyo labadeedii carruur oo askari markaa qabatay. waxaana laga yaabaa sababta uu soo noqday inaad isweydiinaysid. wuxuu usoo noqday markaas inuu caawiyo iyaga laakiin askar markaas ayaa qabatay isagoo markaa meesha taagan. ugu dambeyntiina waxaa markaa badbaadinaysa Matilda oo waxay qiranaysaa markaa inay seexan karto. askartii ayaa markaa qaadaya iyagoo markaa geynaya qaybta shaybaarka. Dr. Curtis ayaa markaa ku xidhaya gaaska suuxdinta wuxuuna la yaabay inuu arko inay dhab ahaantii seexan karto.
dhanka kale Jill hadda waxaa luntay markaa maskaxdeedii sababo markaa la xiriira hurdo la'aan iyo daal. Mavi ayaa waxay weydiinaysaa markaa su'aalo ku saabsan Matilda laakiin way adagtahay markaas inay uga jawaabto. taas kadib islaantii weyneed waxay markaa gashay xaalad wadna xanuuna wayna dhimatay inkastoo dhakhtarku uu ku dadaalayo markaas inuu badbaadiyo iyada. hadda qadarka bini'aadamku wuxuu ku jiraa markaa gacanta Matilda. Dochi waxaa loo qaatay markaa ilaala ahaan isagoo la siiyay markaa daawo ka caawinaysa daalka. dhanka kale Jill waxay la kulmaysaa markaa riyooyin waxayna ku riyoonaysaa wiilkeedii Noah oo isku dayay markaas inuu dilo. waxayna soo miirsatay markii nin askariya uu kaxaysanayo Noah. hadda cidna iyada markaa garabkeeda ma taagna. waqtigaas kadib qof walba oo meesha jooga oo ay ku jiraan markaa shaqaaliya caafimaadka iyo askartu waxay bilaabayaan markaas in maskaxdoodu ay lunto. waxayna la kulmayaan dhalanteed iyagoo tooganaya qof kastoo markaa meesha jooga. mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo Sandra ayaa damacday inay markaa Jill disho. kadib iyada ayaa markaa waxay isku jeedisay boskaaladii oo isdishay. Jill waxay u degdegtay markaas inay badbaadiso Matilda laakiin Mavi ayaa joojisay iyada. dhowr daqiiqado kadib Mavi way dhimanaysaa sababo markaa la xiriira daawo uu siiyay dhakhtarku. Jill ayaa markaa ugu dambeyntii badbaadisay Matilda waxayna u ordeen markaas inay badbaadiyaan Noah. dhanka kale Noah wuu wareersan yahay wuxuuna taabtay markaa fiilo koronto waxaana ku dhigtay markaa korontadii. Jill iyo Matilda waxay isku dayeen markaas inay badbaadiyaan intii karaankooda ah laakiin uma suurtagelin. subaxii xigtay meydadku waxay daadsan yihiin markaa hareeraha dhismaha qof kastana wuu dhintay marka laga reebo Matilda iyo Jill. hase yeeshee Jill xaaladeedu aad bay u daran tahay. isla markiiba Noah ayaa markaa noolaaday. labadii ayaa markaa la yaabay oo ku farxay inuu dib markaa u soo noqdo. waxayna ogaadeen in Noah uu u muuqdo markaa mid ka soo noqday hurdo dheer. Matilda ayaa markaa sheegtay in Noah uu seexan karo. ugu dambeyntii markan hooyadood ayaa markaa xaalad adag ku jirta. si markaa xaaladeeda ay u badbaadiyaan waxay keenayaan markaa harab biyo ku jiraan waxayna ku riixayaan biyaha oo xoogaa ay ku jirsiinayaan den dibadda ayay markaa u soo saarayaan. dhammaadka filimkana waxaan aragnaa carruurtii oo soo celisay markaa wadnaha hooyadood. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like gare si markaa dad badan ugu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashadaada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga markaa ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.